wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland wasiir Cadaani oo xubinka ahaa wafdigii wasiirada uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Waran Cadde oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Burco ayaa maanta ka hadlay dhacdo ka soo cusboonaatay deegaano ka mid ah gobolka Sool ay iska hor yimaadeen beelo wada degaan taas ay ka dhalatay dhimasho 7 qof waxaana uu dadkaasi ku dagaalamaya deegaanadaasi ugu baaqay inay ku soo noqdaan gobasha nabadda waxaana uu tacsiir diray ku dhimatay dagaalkaasi waxaana hadaladiisii kamid ahaa wasiirka waxay ilaa xalato weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dabaaq loo diray maxaa raacay gobolka Sool iyo wasiirku badii markay arrintaas u dhacday oo hore deelwa reeraha Soomaaliland kamid ah oo walaalaha ayaa deesaa ka waraysan mashaqo dhexka maxaa ku dhacay dibadda kala dhexdhashay salaadiin iyo guurti iyo waxgarad fara badan baa loo diray iyo wasiirada markii hore arrintaas xabad joojin baa la isla qaatay oo dhamaatay waxaana u egtahay xabad joojintaas inay xalad jabtay oo maanta khasaare xooggan ilaa saaka u yimi waxaan mar labaad aan ku celinaynaa Ramadaan baa lagu jiraa waa bil soon oo Ramadaana in dadka walaalaha ilaahayna laga boqo dagaalna wiil kuma dhashay wiil uma qabta waxaan leeyahay abtiyaaladay ee halka ku dagaalamaya bil soon baa lagu jiraa inay ilaahay iyo tabinaanada oo ay u baqaan oo ay joojiyaan xabad joojintii markii hore la sameeyay ay dib ugu soo noqdaan oo ilaaliyaan oo wanaagga iyo nabadda iyo maxaan ku dhahay xaaladda lagu soo celiyay nabad maxaan ku dhahay ummadda ka dhacday intaas ma ku diray Khadir Cabdirasaaq Salebaan Hadwanaag News magaalada